Assalaamu calaykum. Ereyga falsafo ama philosophy waa laba erey oo Gariig ah oo isku dhafan, oo macnahoodu ah philo oo jacayl ah iyo sophy oo ah xikmad ama murti. Qofka filosoofka ah waxay baraysaa falsafada su'aalaha aasaasiga ah ee ku saabsan caalamka, aqoonta, akhlaaqda, fikirka, sababeynta iyo luqadaha. Inta badanna su'aalahan waxaa la weydiiyaa sida doodaha loo baari doono ama loo xalin lahaa. Falsafad-yaqaan waxaa macneeyay saynisyahan Pythagoras sanadkii 570 dhalashadii Nabi Ciise ka hor, wuxuuna ku qeexay inuu yahay shakhsi jecel xikmadda. Waxaa jira su'aalo ay isweydiiyaan falsafad-yaqaanada oo la taaban karo, sida ma jira qaab wanaagsan ee lagu noolaado, dadka ma leeyihiin xornimo doon. Fiidiyowgani waxaan kaga hadli doonaa Aristotle oo ka mid ahaa filosoofyada ugu caansan. Haddaba waa kuma Aristotle? Maxayse yihiin guulaha uu gaaray? Marka laga hadlayo falsafada, su'aasha ah Aristotle dad badan ayaa isweydiiya. Aristotle wuxuu ahaa mid ku takhasusay cilmiga falsafada, waxaana u dheeraa cilmiga biology-ga, isagoo xayawaanka u kala saaray noocyo kala duwan iyagoo loo eegayo astaamaha la mid ah kuwa bini'aadamka. Wuxuu u kala qaybiyay laba qaybood: dhiig gaduudan. Kooxdani waxaa ka mid ah Arthropods oo ka kooban arthropodska. Si kastaba ha noqotee, aragtidan waxaa la isticmaalayay sanado badan. Aristotle wuxuu sharxay waxyaabaha nool, wuxuuna garanayay qeybahooda. Ka sokow midaasi, Aristotle wuxuu kaloo ku fiicnaa sayniska dhulka iyo cimilada. Sidaas daraaddeed, wuxuu aqoon u lahaa lakabyada dhulka. Aristotle sidoo kale wuxuu ka hadlay wareegga biyaha ee dhulka iyo dhacdooyinka ugu muhiimsan cilmiga xidigaha. Kadib markaan ka jawaabno su'aasha Aristotle, waxaan ka hadli doonaa dhaqamada falsafada. Dad badan oo bulshada ka mid ah ayaa weydiiyay su'aalo falsafadeysan. Su'aalahana waxay yihiin dhaqan falsafad oo ku saleysan shaqada bulshooyinkii hore, iyagoo ku dhawaaqayo ereyga cilmiga sayniska ee Yurubta Ameerika ee leh falsafada reer galbeedka. Falanqaynta falsafada waxaa lagu gartaa lahaanshaha awood sax ah oo lagu falanqeeyo su'aalaha falsafada. Ujeedada falsafada waxay tahay in la helo ama la soo saaro wixii muuqaal ah oo qarsoon. Falsafada ka soo jeedo qaaradaha waa falsafado kala duwan oo ka kala socoto iskuulada kala duwan ee qaaradaha Yurub. Falsafada waxaa loo adeegsadaa waaxda aadanaha ee ku hadla luqadda Ingiriiska.